aad baan salaamaya saaxiibayaal meel kasta joogtaan halkan waa rashka tiro saaxiibada muuqaalkan waxaynu ku eegi doonaa ninka la yiraahdo Dayax Films oo ka soo cararay xukuumadda maamulka Soomaaliland waxaana sidoo kale lagu soo waramayaa in iminkan uu ku sugan yahay gudaha magaalada Garowe ee maamulka Puntland ka tirsan maxay tahay sababta uu caasimadda Hargeysa oo uga soo tagay sababahaas aynu eegi doonaa sidoo kale xukuumadda Soomaaliland oo sheegtay in ninkan si sharci darro ah uga soo cararay gudaha xukuumadda Soomaaliland waxaynu eegi doonaa saaxiibayaal qodobo kale aynu eegi doonaa sidoo kale waxaynu eegi doonaa warbixinada ku saabsan ninka la yiraahdo dabcan Dayax Films oo muddooyinkii ugu dambeeyay baraha bulshada lagu faafinayay saaxiibada waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada muuqaalkan oo kooban waxaan idin ka codsanayaa in YouTube-keena Rashka Trulof aad subscribe inoo saartaan sidoo kalena aad lagtaan nagu caawisaan waa mahadsantihiin waayahay saaxiibayaal muuqaal uu soo geliyay ama sawir uu soo dhigay bartiisa YouTube-kan in la yiraahdo Dayax Films ayaa yiri ma ihi dameer dulmiga daalacada ma ihi kalkaaliye kaligii talis mana ihi doqon dadkiisa dabusita waxaan ahay dulmidii doodaya waxaan ahay Soomaali sankoneeflaha dunida dabcan siijigeygana uu sareeyo ayuu yiri ninka la yiraahdo Dayax Films oo dabcan muuqaal ama sawir soo dhigay runtii Dayax Films waxa uu caan ka ahaa gudaha magaalada Hargeysa ee Soomaaliland waxaana sidoo kale lagu soo waramayaa in uu ka soo cararay ciidamada dabcan gudaha maamulka Soomaaliland mar uu hadlayay waxa uu yiri runtii aad iyo aad baan uga xumahay sida ay ila dhaqmeen xukuumadda Soomaaliland waxa uu yiri aniga daruuf ayaa dabcan ku soo noolaa sidoo kalena dabcan dhalinyarada wax ma loo qabanayo dabcan kaliya waxa la sameeyaa hadii qofka uu gaaro heer ayaa waxa la leeyahay lacag keen iyo in markaasi dabcan laga qaado lacag markaasi dabcan qofka shakhsigan shaqeystay marka wuxuu yiri intaasi oo idil wax baan baranayay duruufo badan baa dalka ka jirtay dhalinyarada gacanta ma laga qabanayo laakiin markaad heer gaadho ayaa dabcan waxa lagu leeyahay lacagtaas ayaa laga rabaa midaas ayaa keentay buu yiri inaan ka soo carro waan ka soo carbaabo gudaha Hargeysa sidoo kale dabcan waxa soo dhaweeyay dhammaan dadka ku sugan gudaha magaalada Garowe wuxuu yiri way isoo gaareen fariimihiina tirada badnaa waa dabcan waad ku mahadsantihiin 100% hawsha way soconaysaa nacas looma joojinayo waana soo baahin doonaa wax badan ayuu yiri ninka la yiraahdo Dayax Films oo caan ka ah dhanka baraha bulshada sidoo kale iminkan waxa uu joogaa gudaha magaalada Garowe caasimadda maamulka Puntland waxaana lagu soo waramayaa in YouTube-kiisa dabcan qalabyadiisa gabiyahanba laga qaatay laakiin uu doonayo in dhawaanahan uu soo iibsado qalabyo sida laptop-ka oo kale sida maxaa la yiraahdaa dabcan computer-ka aan iraahday kamerada oo kale ama microphone-ka waxaana sidoo kale lagu soo waramayaa in iminkanba dabcan maxkamadu la tiigsan doono dadkii doonaya ama ciidamada doonayay in markaasi dabcan wax badan ay ka qaataan tani ayaa noqonaysa mid markaasi caburin ah dadka baraha bulshada Soomaaliland inta badan waxay inta badan markaasi ay ka hadashaa arrimo badan oo ah hadii fanaan Muqdisho uu ku soo heeso kale dabcan Hargeysana tagay inta badan waa la xiraa laakiin ninka la yiraahdo Dayax ayaa waxa uu sheegay in uu yahay qof xur ah wax kastana uu sameyn karayo wuxuu yiri wax kasta waa sameyn karaya waxaan xur u ahay wadankeyga soo markaad heer gaadho in aad micnaha maaragtay lagu yiraahdo waa in waxaad sameysaa qalad weeyaan marka saaxiibada muuqaalkan intan iyo kuwa keenayaan ku soo gabagabeynaya saaxiibayaal waxaan idin ku codsanayaa in YouTube-keena Rashka Trulof subscribe gareysaan lacagtaana waa caawisan waxaad leeyahay muuqaalkiisa xiga